ramadaan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 15 bisha Afraad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxa kamid ah jadwalka doorashada kuraasta ceelwaaq oo shaaca laga qaaday Axmed Madoobe oo dadejinaya doorashada kuraastan muddo uu ku dhagnaa madaxweyne Farmaajo maamulka gobolka Gadana waxay si adag kaga hor yimaadeen in 16 kursi doorashadooda lagu qabanayn meel aan garbaharay ahayn ra'iisul wasaare Roble amar cusub ayuu ka soo saaray oo doorashada kuraasta laga wareejiyay garbaharay Farmaajana war aan laga filayn ayuu ka soo saaray waxay kaga dhigan tahay dhinaciisa dharinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo beesha caalamka oo dalab culus u dirtay madaxda Soomaalida iyadoo ugu baaqday in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka guddoonada baarlamaanka iyo madaxweynaha intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka janalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janalkan kusoo biro subscribe sar muuqaalka lagsaar share garee oo la wadaag saaxiibada waad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janalkan haatanna warkii fidsan jadwalka doorashada kuraasta ceelwaaq ayaa la shaaciyay iyadoo Axmed Madoobe uu dadejinayo doorashada kuraastan muddo uu ku dhagnaa Farmaajo guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland ayaa soo saaray jadwalka doorashada 16 kursi ee lagu qabanayo magaalada Ceelwaaq saacado kadib markii la shaaciyay in kuraasta la garbaharay loo wareejiyay magaaladaasi warka ka soo baxay guddiga waxaa lagu yiri guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland oo tixraacaya warqada ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FIDA kuna taariikhsanayd 13 bisha Afraad 2022 ayna ku cayimeen goob doorashada labaad ee Jubbaland waxay guddiga siid ee Jubbaland halkan ku shaacinayaan jadwalka doorashada 16 kursi oo lagu qabanayo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado doorashooyinka ayaa la qabanayaa inta u dhaxaysa 18 ilaa 27 Abriil iyadoo kursiga ugu horeeya uu yahay hoob eber 79 doorashadiisuna ay dhacayso 18 bisha oo ku beegan Isniinta qabashada doorashada kuraasta Ceelwaaq ayaa ka dhigan in dhammaan doorashada kala shacabka la dhameyn doono 27 Abriil maadaama kuraastaasi ay yihiin kuwa kaliya ee harsan iyadoo la filayo in Hirshabelle doorashadeeda ay dhameyso xilligaasi ka hor guddiga doorashada heer federaal ayaa shalay sheegay in go'aankan uu garay kadib markii uu arkay in laga maarmaan tahay 16 kursi ayaa la garbaharay kuwaas oo aan ka hari karin hanaanka doorashada dalka xilli shalay la dhaariyay xildhibaanada cusub guddigu waxa uu sidoo kale sheegay in caqabado ay ku horgudban yihiin in doorasho ay ku qabsoonto garbaharay isla markaana maamulka garbaharay ay diideen xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in booqasho ay ku tagaan magaaladaasi si loo hubiyo xaaladda amni ee garbaharay dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa soo dhaweeyay go'aankii guddiga doorashooyinka heer federaal kuraasta doorashada garbaharay uu kaga wareejiyay isla markaana uu geeyay Ceelwaaq go'aanka guddiga ayuu madaxweynaha maamulka Jubbaland ku macneeyay mid lagu dardargelinayo doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu mar kale ku celiyay in kuraasta la gobolka Gado aan laga reebin doorashooyinka guud ee dalka isla markaana laga maarmaan ay tahay qabashada kuraasta gobolkaasi taala si dadka deegaanka ay u helaan matalaad dhaba sidoo kale waxa uu ku dooday in sababaha ugu waaweyn ee doorashooyinka kaga dhici karin garbaharay xilligan ay tahay in aan la damaanad qaadi karin nabadgelyada dadweynaha iyo ergooyinka halkaasi tagi lahaa Axmed ayaa ku booriyay guddiyada doorashooyinka ee kala duwan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gabagabeeyaan doorashooyinka xildhibaanada ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland si looga faa'iideysto waqtiga dib u dhac kalena uu soo iman ugu dambeyn waxa uu baaqay dadweynaha ku nool magaalada Ceelwaaq inay kala shaqeeyaan hay'adaha amniga nabadgelyada deegaanka soo dhaweynta martida iyo ergooyinka ka qayb qaadanaya doorashooyinkan docda kalena maamulka gobolka Gado waxa uu gabiyaanba ku hor yimid in doorashada 16 kursi ee garbaharay loo wareejiyo Ceelwaaq gudoomiyaha maamulkaasi Axmed Buule Garaada oo BBC da la hadlay waxa uu sheegay inay ku taagan yihiin heshiiskii 17 September isla markaana ay suurtagal ahayn in kuraastaasi doorashadooda laga wareejiyo garbaharay Buule Garaada ayaa ku eedeeyay guddiga FID inaysan habaysnayn oo ay dhowr garab kala noqdeen
waxaan xaqiijinayaa in haddii warqadaasi ay xaqiiq noqoto aan Garbaharey ku dooran doono xildhibaanadii harsanaa oo doorashadu ay Garbaharey ka dhacayso ayuu yiri. waxa uu sheegay in markii horeba aan lagu heshiin waayin in doorashada ay Garbaharey ka dhacdo isla markaana ay ku jirtay qodobada heshiiskii 17 September. waxaan uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin arrintaasi doorashadana ay qabsan doonaan. isla wararka ku aadan kuraasta taalla gobolka Gado ee doorashadu loo wareejiyay Ceelwaq ayaan ku guda jirnay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu soo dhaweeyay go'aanka guddiga doorashada heer federaal ay ka gaareen doorashada kuraasta Garbaharey. Roble ayaa ku booriyay guddiga siid ee Jubbaland iyo dowlad goboleedka Jubbaland in si dhaqso ah ay u soo dhameystiraan kuraasta ku dhiman. war kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble waxa uu dhignaa sidan: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isagoo tixgelinaya xaqa matalaadda dadka gobolka Gado iyo ahmiyadda dhameystirka doorashada waxa uu bogaadinayaa soona dhaweynaya go'aanka guddiga doorashooyinka fiid ee ku aadan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal ku aadan dharinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ka dhacday teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho. Farmaajo oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ugu hambalyeeyay gudashada dhaarta dastuuriga waxa uu tilmaamay doorka shacabku ay ka sugayaan xildhibaanada cusub ee ku aadan xoojinta dowladnimada, horumarinta dalka iyo adkeynta midnimada. Farmaajo waxa uu tilmaamay muhiimadda dalka ay u leedahay dhameystirka doorashada si waafaqsan heshiiskii 17 September oo ay ku heshiiyeen madaxda wadatashiga qaranka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo saldhig u ah fulinta doorashooyinka wadar ogolka. madaxweynuhu waxa uu kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal inay dhameystiraan dadaalkii baarlamaanka tobnaad uu ku bixiyay meel marinta hindis sharciyeedyo waxtar u leh dowlad dhiska kuwaasi oo hortobin u leh si aan baqaadida isbedelada socday amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ah ee lagu tilaabsaday sanadihii u dambeeyay. Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ku adkeeyay in ay xoojiyaan wadajirkii midnimadooda, ilaashadaana miraha dowladnimada iyadoo muwaadin kasta uu mudnaanta siinayo wadanaha qaranka iyo sidii aan u horumarin lahayn dalkeena. Farmaajo ugu dambeyn waxa uu rajeeyay xildhibaanada labada aqal ee shalay la dhaariyay inuu alla u fududeeyo waajibaadka qaran ee horyaalla kana yeelo mas'uuliyiin ka shaqeeya danta dalka, diinta iyo dadka Soomaaliyeed. ugu dambeyn beesha caalamka qoraal ay soo saartay waxay kaga hadashay dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo shalay lagu dhaariyay teendhada Afisyooni ee Muqdisho. warka qoraalka ee ka soo baxay beesha caalamka waxa uu dhignaa sidan: saaxiibada caalamka waxay soo dhaweynayaan dhaarinta xubnaha dhawaan la doortay ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee Soomaaliya kadib muddo ka badan hal sano oo dhammaan hay'adaha dowladdu ee la soo doortay ay dhaafeen waqtigooda dastuuriga. waxaan ku faraxsanahay in baarlamaanka cusub uu hadda diyaar yahay. waxaan si adag u cambaareynaa weerarka hoobiyaasha ah ay mas'uuliyiintu sheegteen shabaab oo subaxdii hore ee shalay ka dhacay meel ku dhow goobtay ka dhacaysa xafladda dhaarinta. waxaan ku hanweynahay in si degdeg ah loo dhameystiro marxaladaha haray ee geedi socodka doorashada, gaar ahaan doorashada hoggaanka baarlamaanka. kadibna madaxweynaha waxaan ogsoonahay inay jiraan kuraas baarlamaan oo aan la buuxin. waxaan fahansanahay in marka kuwan la go'aamiyo in xubnaha dheeraadka la dhaarin doono ayna ku biiri doonaan geedi socodka hadba meesha uu marayo. saaxiibadu waxay markale ugu baaqayaan madaxda Soomaalida inay yareeyaan xiisadaha siyaasadeed, ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda muwaadiniinta Soomaaliyeed, ayna si degdeg ah oo nabad ah oo lagu kalsoonaan karo u soo gabagabeeyaan hanaanka doorashada. warkan waxaa wadajir u soo saaray howlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Afrika, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Ruushka, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Isutaga Imaaraadka Carabta, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. guudana saaxiibayaal oo naginta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada. waad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xigintan ku kulmi doono. nabadgelyo.